عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت ومدي سلامي dadka hore ee la joogay dadka igu soo biirada waa mahadsantihiin like-ta share-ta xagiina waaye iyo subscribe-kooda saartin insha Allah waa walaashin ayaan oo ku soo noqdo waa ku mahadsantihiin inay la joogtaan halkan waxaan kala hadlaa walaashay Safiyo dhulka waxba hayso dhigin nin bini aadam wax walbaba dad iyo duurba waxaa ka filanayeen ala arkaa laga helaa aday dhulka waxba hayso dhigin waxaan waa kugu dhaceen ninkii naagtiisa ceebeeyana hada asagaaba ceebeysanayba mideeda kale inaa isu jilcisid ceeb waa laba baleef marmarood maqlid daa wax ceeba ma baada sameeyeen ma fahanti wax ceeba ma baada sameeyeen lagu yira waa ceebeysanta waa qalab waxa ceebeysa waa ninkii naagtiisa ceebay asagaaba ceebeysan oo qof aaminay oo dambe naag raja iskala ninkaas aamin mayso ma fahanti adigan hore u socon kula waxba dhulka hayso dhigin wixii lagu badaba ka mayro bini aadan dambe oo aamintana kaas ugu dambeeyo habartaaba hadashay yaabo is aaminaba walaaliku hooyada shan kula sakar heedkaygu ma sheegto qof bini aadan oo habarta yaaba ka dhalan xataa aamin sanadkan sanad aamina ma bijiraanba mideeda kale ninkan asagaas ceebay ma adu maxaad ku ceebeysantaa inaad guursatay ninkii yaa xumaaday sawirka ka faafiyay waxaas wax adiga ceeba maaha ninkii sawirka naagtiisa ka faafiya ceebeysan ma fahanti naagtiisa xumaan ka faafiya ceebeysan ee korinta isu qaadid madaxa kor ka qaadid waxaan dhan hafiifirin hore u soco dantaada garo ilmahaaga garo maskax leemisho ku rin hooyaa tahay waa ogahay hooyo la cili waxay tahay intaas kaligaas la sheekeysatidood tartiibtaada quraankaaga aad quraanka kitaab quraan soo qaadid aqriso subhanallah Allahu akbarta badi ya gabdhaha midaan u sheegaa ha ku digan gabar walaasha bari waxa kala kulmi doonaba alla mideeda kale gabdhaha Soomaaliyeed waxa la isu yeelaya nimanka balwadana gabdhaha Soomaaliyeed ayagana waxa lagu digaa nin balwad la inaysa guursan maxaa yahay nin Soomaali balwad wax walba ka surtooba boqolaal sharaf loo balwadna lagu ku jira ayaga xanaaqan walaalahay aw xoogaa waa ka cadsanay raali noqdo wiilalow waxa Safiyo tusmo u dalaaninayo intaas la hadlayo oo ninkaas ku dhagan wiilalay u badan yihiin waa ku mahadsanid adinkana guul iyo gobonimo ay idin rajeynay ya insha Allah maantiin halkaan ay ka salaama cadawgii ha jabo Safiyo waxaan leeyahay cadawga ha jabo waxa la afka hadii xaq laga daboola qofto ka dilaaca ma qof bini aadan oo dhehaysa riwaayad baan jilayniyo magaciisa aan jilayniyo waxaas waa waxsan anigu laba saddex gabadhaas inay run sheego markay tawar kaamera laga leexiyo horaad ii disho qof madluunsan oo dilan oo daalan sidii loo dilay daalan inay tawaab iska muuqataaba ma fahanti laakiin wuxuu kugu dhaca wixii kugu dhaca waa iska mayrarta ha ka qoomamaynin waxba qoomamaha maskaxdaada u dheemish ka dhigaa weliga ha qoomamaynin wixii ku soo maray dib ha u raacraacin xasuus dheer u gal inta cuudu bilaysada quraan soo qaad tasbiixsada subhanallah Allahu akbar tisadid ya ilaah rasuulka baya man qashana falaysa minna ruuxi naga mid qiyaama madida kamid maaha xaq ilaahayna sharaftiisa ku dilay xaq bini aadana sharaftiisa ku dilay naagtii noocaas aaminta ay u taala afahant in noocaas u dhaqmay naagtii aaminta kalsoonida dhan oo dadka waa ka dhimata aniga inta aqliga u saaxiibkaaba kalsooni uma hayno laakiin naaga iska hayra caaduna anu kaas iyo wixii lamadaba noloshaydii weligeey aan kula nin balwad leh haduu ishu gaasada xada waa gacan aqad jaran maxaa yeelay nin balwadna noloshiisa
mustaqbalkiisa waxa ka horeeya balwadiisa ka horeyso fahanta gabdhaha Soomaaliyeed waxaan uga digaa nin balwada hooti inaysan dhihin ay salaam inay dhahaan nin Soomaali balwada agtiisa inay isku lawaanin nimankeena Soomaaliyeedna boqolaal ay ka fiican yihiin haddii balwad lahayn boqolaal dad boqorinaha ku jiraan oo la heli karin marka waxaan leeyahay walaashay adkayso oo haysla sheekaysan qalbiga hayska dilin hayslihin dhaawac dheemishka ku gaaray waad ka raysanaysaa laakiin waa inaad tasbiixda badisaa astaghfirullah allahumma salli ala sayyidina muhammad salliga rasuulka badisaa ma fahanti tasbiixda badi waxaasoo dhan qalbigaaga dhan way ka tirtirmayaan asagana maanta maalin uu ka shalay doonaa ama adduunka looga gooyo ama aakhira looga gooyo midaa looga goynaa hadduu qaladkaas waaba kaaga u jeednaa waa iska cadyahay yaa ma oga miya inuu ilaahay aayad quraan ku yiri suurad baqara ku jirta naagaha dharkiina waaye adinkana dharkoodii yaatiin nimanka la hormaraan nimanka dharkoodii yaatiin na gabdhuhuna dharkiina waaye in la yiri ma oga miya waka xumaa wallahi hada uga xumaa ya inaad gabar walaasha oo Soomaali kula ya anigana qof Soomaali marka arko waa qeyrooda qeyraaba ay qabataba adigana heerka iyo cawad gobol walaasha Soomaali kula taaganta waa noocaas waa yar yihiin guulashiina waxa ku jira kuwa dunta Soomaalinimadu ay ka leehday sida wiilal badan aan u jeedo oo Soomaalinimadu ku dheertahay anigana saasay Soomaalida igu dheerto Soomaali jileeci jeer isku ka yimid yihiin maxaa yeelay waa walaashay waa dunta Soomaalima ay ugu jirto lagama yaabo anuu qof Soomaali jeedina qof ajaanima aan jeclaado respect aan u hayaa idan respect aan siinaa laakiin Soomaalida waa shay qaali ah qalbigaaga dhis hooyatay haystilcin quraanka akhriso taasaa muhiim ah saxaabta iyo tubleedana waa cod shaar oo aan ka rabaa inaad ii tiraahdiin insha Allah guul iyo gobonnimo dhammaan wiilal iyo gablaba shaqadka waa inaad i caawisin caawinaada aan ka rabaa guuleysta insha Allah dhammaantiin waa ku mahadsantiin kuwa ila jooga iyo kuwa shaqadka siiyay insha Allah khayr ayaa idin rajeynaa insha Allah shaqad guul qofna ima ismaynin laakiin waa cod ayaga dadka dhan aan dilan qof hebel ma dhahay مع السلامة.